war-saxaafadeed hadda soo gaadhay xafiiska warqabadka ee Voice News oo ka soo gaadhay madaxtooyada Somaliland ayaa waxa uu dhignaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo kulan la qaatay gudoomiyayaasha xisbiyada mucaaradka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku wehelinaya madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa maantiga qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay gudoomiyayaasha xisbiyada mucaaradka ee u cidiya wadan Mudane Faysal Cali Xuseen iyo Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay arrimo badan oo la xiriira xaaladda guud ee dalka. Kulankan oo madaxweynaha iyo gudoomiyayaasha xisbiyada u cidiya wadan ayaa diiradda lagu saaray qodobadani in si wada jir ay hoggaanka asxaabta qaranku uga wada shaqeeyaan waqtiga ugu suurtagalsan ee doorashadu qabsoomi karto, in saddexda xisbi qaran ka howlgalaan dhamaystirka caqabadaha ku gadaaman qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada, in si wada jira saddexda xisbi qaran u gudagalaan soo jeedinta odayaasha arrimaha doorashooyinka. Madaxweynaha iyo gudoomiyayaasha xisbiyada mucaaradka waa u cidiya wadaniya waxay kulankoodan iskula garteen in ay wada tashi kula noqdaan xisbiyada iyagoo u ballamay kulamo dambe oo arrimahan lagu sii gorfayn doono. Alla mahadle war-saxaafadeedkan ayaa waxaa ku saxiixnaa afhayeenka madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Maxamuud Warsame Jaamac, Cawil Cabdiraxiin Kayse, Cawil Burcaawi, Voice News, magaalada Hargeysa.